halkani waa alxaqiiqa. warka xiisiyo xajka qarsooniyo halkaa qarsoona alxaqiiqa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. halkani waa alxaqiiqa. faalida barnaamijkeenu maanta waxa weeyaan heshiiska jaraska xoorka ah ee Soomaaliya ay la soo gashay Masar iyo jawaabaha ay kaga falcelisay Ethiopia iyo halka hadda xaaladdu marayso inaan ka faallado amuuraha inaan ka faallado ayuu barnaamijkeenu daaraya. aan bilaabay waxaynu ogeyn bilowgii sanadkan January heshiiskii isfaham ee ka dhex maray Ethiopia iyo Somaliland MOU-ga markii ay dowladda Soomaaliya maqashay inay maryaha dhigatay oo 70 khalad iyo 70 safar oo lagu wada qoslo ay gashay mid quran aanay guul ka keenin, taasoo ay dowladaha jaarka qaarkood kula socdeen oo garwadayeen dhammaan tallaabooyinkii iyo ficiladii ay qaadeen wuxuu noqday qaar lagu khasaaro. waynu wada daawanayno inaan ku celiyo meelahay soo mareen muhiim ma aha halka, laakiin maanta xaaladdu marayso waxay ahayd way waan ka dhiganayeen way nafta ku maaweelinayeen arrintii ay lahaayeen Turki ayaa marna dhexdhexaadinaya marna badda noo difaacaya. arrintaasoo sidii ku dhammaatay aynu ogeyn in laysku mari waayey laguna kala kacay. Turkiguna maadaama dowladda casuuntay labada dhinac u ahaa oo communicate meel kaga kaca oo macna ku fadhiyin oo yiri mar dambe ayaa la soo noqonay, taasoo meeshii arrintii macnaheedu ahaa meel kaga kaca. markii arrintaas suuragali weyday Xasan Sheekh wuxuu isku qaaday Masar, taasoo uu yiri heshiis military baan la galay oo waxaan keenayaa dalka Soomaaliya maadaama ciidamadii nabad ilaalinta ee Afrikaanka ahaa ee muddada badan joogay ay baxayaan oo kontraagii uu ka dhamaaday, lacag kale oo codsiinaysa oo si ku siyaanaysa meeshan aan jirin, dowladihii lacagta bixinayna dhammaantood ay ka goos adeegeen inay lacagta foosta daloosha ku shubaan oo wax faa'iidii ka soo socon. taasi waa ta keentay Masar baa imanaysa. heshiiskii Masar baa imanaysa ay la soo galeen Xasan Sheekh oo jaraska xornimo ahaa wax badan aanay ka fikirin arrintii Ethiopia iyo ayaga ay ka dhaxaysay cirka ku sii sharartay. waa ta keentay tallaabo ficiliyana in Ethiopia ka qaado oo generaalkii ciidamada militariga ugu sarreeyay uu ka dego goday oo saldhig military oo ballaaran oo maxay dayiin ciidamada cirku ay ka dagaalgeli karaan laga qorsheeyay. waxa la mamnuucay oo kale duulimaadyadii shicibka ahaa ee imanayay goday in garoonka loo isticmaalo mid military. waxa kaloo saldhig military laga yagleelay oo sida qorshuhu yahay feerfeer oo aan ka fogeyn beledweyne. dowladda Ethiopia waxa ay muuqataa sida warbaahinta Ethiopia ka soo baxda ay sheegaysay oo arrimahan falqaysa inay ciidamadii ugu laxaadka badnaa ay geyn doonto deegaanada Soomaaliya sida dhinaca Hiiraan iyo dhinaca koonfurta oo ay joogaan ciidamada hore ay joogaan sida koonfur galbeed iyo Gedo. gobolada dhaxana ay dhawaan bay ahayd markii aaga gaalka ay ku beegan ciidamo badan la geeyey. arrintaasi waxay sababtay in meel kasta oo ay meelihii ay ugu talagaleen in Masar imanayso ay Ethiopia sii buuxisay oo ay ciidamo xoog la geysay. meel ay maanta u banaano Masar ciidamadu haddii ay runba tahay imanayaan meesha qudha u banaanay waa Muqdisho. taa bedelkeeda waxaa muuqata raaligaada in iyadoo oon tallaababa la qaadin Xasan Sheekh lagaga guulaystay Ethiopia kaga guulaystay waddanka gudihiisa. waxaa maanta hadlay nin sarkaala oo yidhi Masar ma iman karto oo ku hadlayay afka Jubbaland. ninkaasoo yidhi waan la dagaalamayna haddii ay yimaadaan. dhinaca koonfur galbeed nin kalaa ka hadlay. hadaladaa imika ka imanaya goboladii Soomaaliya ee uu Xasan Sheekh maamulayay ee federaalka ahaa waxay muujinayaan in Ethiopia kaga taageeran run tahay Xasan Sheekh oo aanu waxba gacanta ugu jirin marka la eego
koonfur galbeed jubbaland qoorqoor oo galmuduga iyo puntland midna inaanu ka amar qaadanin ayay caddaynaysaa waxa maanta hadlay oo hadalkiisii aan waxay ka maqashiinayaa caqli xumada nimankaa walaweyn haysata ninkan la yidhaahdo yuusuf garaad oo ay madax martay ama hinaaso iyo waali ka muuqato hadaladiisana aan isu taagi doono ayaan rabaa inay la dhageystaan xoogay Ethiopia afka kama sheegin waa ka dhowrtay afka laakiin way aqoonsan tahay Somaliland safaarad baa uga furan baasaboorka Somaliland lagu tagaa wasiir walba wasiirka dhigiisa la kulma madaxweynaha waxa la kulma ra'iisul wasaaraha marka heshiisay galaan kala saxiixdaan si isla eg oo isku mid ah marka waxaan rabaa inaan taabto arrinta ku saabsan arrintan Ethiopia jabka ay samaysay Soomaalida sida u dhaqaajiyay moraalkeeda shucuurteeda mideeyay waa ka khatar kale ayaa jirta oo ah in dadka reer Somaliland ay u arkaan wax aan isu abaabulayna ama shucuurteenu ay tahay mid south iyo north ah waa dabdabeenaya waa Soomaaliya khilaaf waa ka jira oo awba waa jira Somaliland iyo Soomaaliya markasta waa inaan cadeyno oo ay muuqato oo gaar ahaan dadka waqooyi ka soo jeedin Cabdi Fataax sidoo u hadlay hadaan anigu hadla hadda waxa dhici lahaa wax kale qofkii waqooyi ka soo jeeday isaga u taala sidoo u hadlayo iyo dareenka uu muujinayo laakiin dadka aan ka soo jeedin deegaankaas waa in taxadar badan ku jira in aan la isku soofaynin Soomaalida dhexdeeda oo aan loo ekaysiinin koonfurta oo waqooyiga ku soo duulaysa dhanka kale laftiisa xataa shacabka Ethiopia oo dalkaas kala qowmiyadaha kala diinta oo islaayay oo dagaalku weli ka dhex socdo qaarkood waaba caddeeyeen mowqifkooda dowladda kuma raacsana arrinta inaan cadaawad shacab laga dhigin dowladda Ethiopia khaladkan samaysay dowlad ahaan la isaga dhiciyo yuusuf garaad waa dhageysateen hadaladiisana waxa muuqda waxa uu sheegayo ayuu doonayaa dadka haddana reer Somaliland inay dareemin oo aanay ogaanin caqli xumadiisa sidoo dadku ay ka caqli yar yihiin waxa uu ka dhigayaa ma garanaysaa dad gafay dadkaas oo cidnaba ku gafay dalkooda oo qura uun shalayba ay ula yimaadeen xorta ah Ethiopia uu sheegay shalay ay itraaftay 1960 itraaftay hal islaas oo itraafay dowladda kaleba ayuu ka dhigayaa wax isaga hostage u ah ama ay leeyihiin ama ay xukumi karaan iyaga oo iska dhigaya wax inuu dadkan reer Somaliland iyo dalkooda uu milki karayo been soo raftiisa u sheegaya waxa uu sheegay ninkaasi in Ethiopia qoomiyada tahay dagaal ka socdaan Ethiopia wata isku kala bixinaysa intii ugu muhiimsanayd oo Soomaaliya ku dhex jirta Ethiopia wuxuu ka sheegaya wata awood leh Soomaaliya uu sheegayna wata aan qorqor iyo Jubbaland iyo waxay lafta gareen iyo dani aan xukumi karin goboladii federaalka ahaa wata gudaha Soomaaliya sarkaalkaasi uu ka sheegayo in aanay Masar iman karin haday timaadana ay la dagaalamayaan waxaan leeyahay ninka Yuusuf Garaade malaawaalka ku hadlaya ama indha adayga ku hadlaya waxa isagoo waxba gacan ugu jirin oo Soomaalidu uu sheegay reerkoodu yaalay aanay gacanta xasasha ku jirin haddana u bu'aya Somaliland waa aqal xumo ayaan oran karaa hadalkii Yuusuf Garaade waxa baabiinaya sarkaalkan dowladda Soomaaliya ay xukuntay federaalka ka midka ah ee madaxweynihiisii ka soo horjeestay ee Ethiopia taageersan Masarna ka soo horjeeda kaasa u qoyskoodii la dhageystay baryahan war baa la waday oo saxaafad u badan oo la leeyahay wadanka Soomaaliya waxa uu soo gurmanayso ciidamo la keenayo wax u qabanaysa Masar Soomaaliya taariikhda dib oo ma akhriso Masar dawladda koobaad oo Cabdiqaasin ayada burburisay oo been u sheegtay Cabdiqaasin xagu ka bax haddana waxaan u maleynayaa oo ii muuqato meeshaas waxa Cabdiqaasin maray inuu Xasan Sheekh Maxamuud mari doono waayo ayada burburinaysa dawladda Soomaaliya ma rabto waxa weeye ujeedkay leedahay waxa weeye inay noqoto ay meeshan Soomaaliya ka dhigato fiilki ama booshishinkii ama goobtii ay kula dagaalami lahayd
dawladaha aan dariska nahay ay kula dagaalami lahayd maalin aan ka baahi badnayn ayaa jirtay Masar nooma imaan arintaas ayada marka dadka nagta u dhigahayow oo Masar soo socoto iyo waxaas Masar wax qabanayso leh annagu waxaan u sheegaynaa gacan birahan ku qabanaynaa siyaasad Masar baan la keeni karin maartay Jubbaland state la keeni karin siyaasad maartay Masar baan la keeni karin gobolka Gado cidii aan ka dareena dhaqanka noocaas ay waxyaalahaas inay wadana gacan biraan ku qabanaynaa wala dirirayna sida shaab aan wala dirirayna lamana anfacayso annagu Ilaahay baa halkan na makaniyay meesha Ilaahay uu na makaniyay waxa inaan nabad kula noolaano dawladaha dariska aan nahay oo Ilaahay uu ay karo meesha makaniyay inaan kula noolaanaan yaa maartay yaa waxaan filayaa inaad dhegeysateen ninka sarkaalka ay Jubbaland ka hadlayay ninka la hadlay maalin horena lafta gareen baa hadlay oo yiri Itoobiya bixi mayso mar Xasan Sheekh Laawe baxaysa ayuu si toos u yiri bixi mayso waxay muujinaysaa hadalladaas inaan waxba gacanta ugu jirin Xasan Sheekh oo dalkii federaalka ku sheegayay goboladaasi ogolay federaalnimada ay deeyihiin inaanay ka amar qaadanin ay Itoobiya ka kalsooyin dowladda Xasan Sheekh oo ila afkaariin waa cadaan dadka halka taagan awoodooda halka taagan tahay waa dadka haddana u bu'aya Somaliland oo aanay iman karin shaqana ku lahayn oo xor ah horana xor ahayd maanta xoroon iman karin dhowrista ka sanood ay kala maqnaayeen haddaan dib ugu noqdo wararka Itoobiya idaacadeeda ka soo baxay waxa weeyaan waxaan idinka maqashinayaa ma soo wada gelin karo qayb kamid ah ayaan idinka maqashinayaa waxay sheegaysaa waxyaabo badan oo dadkeena ka didan oo maxay iyadoo ay cadeynayso waxaana soo xiganayaa hadalkii warbaahinta Itoobiya oo xoogay afxabashi aan idinka maqashin doono ninka shirka gaashaan u qaabilsan Ahmaariguna oo si qoto dheer oo u turjumay laakiin in kooban ayaan idinka siin doonaa warbixinta Itoobiya xoogay aan idinka maqashiyo warbixintii ጠረፍ ጭነት ጫኝ መርከብ የኤርትራ ባህር ኃይል በቅርብ ርቀት ሲጠጋው ክስተቱ ሊፈጠር እንደቻለ ተዘግቧል። ኋላ ላይ የወጡ ዘገባዎች ደግሞ በጀልባዋ ተሳፍረው የነበሩ ኤርትራውያን ወታደሮች በመርከቧ ላይ ተኩስ የከፈቱ ሲሆን ይህም የኤርትራ የባህር ኃይል እንቅስቃሴ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ያሳያል በሚል እየተገለጸ ይገኛል። መርከቦች ላይ የሚደርስን ጥቃት የሚከታተለው የእንግሊዝ የባህር ንግድ ኦፕሬሽን ድርጊቱን የኤርትራ ባህር ኃይል ጀልባ እንደፈጸመች አረጋግጦ ተጨማሪ ምርመራ መጀመሩን አስታውቋል። አውሮፓና እስያን የሚያገናኘው ወሳኝ የባህር መስመር የሆነው ቀይ ባህር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተለይም በየመን ባለው ግጭት ሳቢያ ታጣቂዎች እንደ ልብ የሚንቀሳቀሱበት ቦታ ነው። የሁቲ አማጽያንም በአካባቢው የንግድ መርከቦች ላይ ጥቃት እያደረሱ እንደመጡ ይታወቃል። ነገር ግን ኤርትራ አንድ ባለም አቀፍ የውሃ አካል ላይ የሚጓዝን መርከብ ስታጠቃ የመጀመሪያ ክስተት እንደሆነ ማሪታይም ኤክስኪዩቲቭ አስነብቧል። ጉዳዩ በቀይ ባህር ላይ ሁቲን ለማጥቃት የተቋቋመውን የአሜሪካ መራሽ ጥምረት ሊያሳስብ እንደሚችልም ተገልጿል። የአስመራው መንግስት ከየመን ሁቲ አማጽያን ጋር በቅርበት እየተሰለፈ ሊሆን እንደሚችልም በመዘገብ ላይ ይገኛል። ለክስተቱ ምላሽ ከአውሮፓ ህብረት የባህር ኃይልና ከዩኤስ ሴንትራል ኮማንድ የተወጣጡ ዓለም አቀፍ የባህር ኃይሎች በቀይ ባህር ክትትል ማድረጋቸውን አጠናክረዋል ተብሏል። የፈረንሳይ የጣሊያንና የሌሎች አጋሮች የጦር መርከቦች በባባል ማንደብ ወሽመጥ ዙሪያ ያለውን የቀይ ባህር ክፍል በየተራ ይከታተላሉ። የኤርትራ ባህር ኃይል ምንም እንኳን አነስተኛ የሚባል አቅም ቢኖረውም ከወራት በፊት ከሩሲያ ያስገባቸው አነስተኛ የጥበቃ ጀልባዎቹ intaas waxay sheegaysaa in heshiiska Charles xornimada ay Masar ay la soo gashay Soomaaliya inuu Itoobiya ka cadeysay Itoobiya ay jawaab ka bixisay waxay sheegaysaa oo kale in maxay dowladda military ee abid ugu weynaa ay Itoobiya ka sameyn doonto meelaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku dhow hadii la ku roon yahay baladweyne iyo eriyada waxa kale oo ay sheegaysaa in Somaliland kumayaal ciidamada Somaliland Itoobiya jooga iyo kuwa Itoobiya ayaguna dowladda ka sameyn doonaan dhawaan Somaliland waa sida ayagu ay warka ku sheegayaan waxa kale oo uu sheegayaan in maxay Masar ay isku dayday in ay la soo xiriirdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland kaasoo uu ku go'aansaday inuu xiriir la sameeyo ama uu ka guro wax hadalaba waa sida ay warbaahinta sheegayso aan ka soo xiganay
anagu maaha mid afkayga aan ku sheegno ama raygayga waa sida aan kasoo xigno waxa kaloo ay sheegayaan in wararku ay sheegayaan in dhowaan markii ay quusteen dowladihii kasoo horjeeday MOU-ga ee Soomaaliya garabka siinayay sida Masar Qatar Turkiga inay kula taliyeen Xasan Sheekh in uu la xaajoodo Somaliland oo haddii kursigiisa uga kacayo xitaa Somaliland uga kaco kuwaasoo u qaatay ayagu in Somaliland ay kursi Soomaaliya doonayso ama madaxweyne ay doonayso haddii ay diidaanna waxay kula taliyeen inaad adigu ictiraafto oo adigu ictiraafka aan idinka horreysada qura aad kusoo celin karta Somaliland ama aad ku joojin kartaa heshiiskan Ethiopia ay sidaa tahay waxay kula taliyeen inuu Somaliland ictiraafo waa wararka aanu helayno kuwaas ilaa shalay ka socday warbaahinta waxa taana markhaati u ah wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dowladdii farmaajo Mr. Cawad oo haybahaan ka soo jeeda Puntland ama Mauritania ayaa isaga qudhiisu sheegay oo kula taliyay Xasan Sheekh in ay Somaliland goosatay oo aan la soo celin karin dhawaana la ictiraafi doono cid hor joogsan kartaana aanay jirin maadaama sidaa tahayna inaan isaga ictiraafka looga horreyn ayuu kula taliyay cadowga kaa soo horjeeda ee aan waxba ku ogolayn markuu markhaatiga kuu furo waxay markhaatigaas wuxuu ka wanaagsan yahay kun markhaatiyo kale waxaan leeyahay Cawad waad ku maadsantahay inaad xaqiiqda ka hadashay adiga oo Somaliland aan jeclayna aad sheegtay halka xaaladii marayso arrimaha markaan isku soo wada xoorino Somaliland waxay ku guuleysatay ama madaxweynaha maanta jooga waxay ku guuleysatay siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee ictiraaftoonka taasoo maanta kaabiga u saaran cid kastoo isku daydana labada dhanba ee heshiisku dhex maray madaxweynaha Somaliland iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia dowlado kastoo culays saaray ama opshano kala tusayna inay ku kala kulmeen waji gabax kula guuldareysteen isku daygoodii waxa kaliya cidda kaliya maanta arrintaas u taalo na ay tahay labada mas'uul ee ugu sarreeya Ethiopia iyo Somaliland oo labadaba dantooda u arka inuu heshiiskan dhaco dhawaana waxaan filaynaa in heshiiskaasi dhici doono Somalilandna ay dabaal degi doonto muddada 64 sanadooda ee laga soo bilaabay 60kii maalintii ay gobonnimadoodii ay wareejiyeen ilaa maanta halganka loogu jiray halgankaasoo marna mid dagaal ahaa oo 10 sanadood isna ka dagaalamaysay marna ahaa mid la xaqiijinayay gobonnimadii soo noqotay waxaan leedahay Somaliland waynu guuleysanay cadowgeena wuu jabay waxa laynooga baahan yahay waa ayaamii u dambeysay dulqaad iyo inaan midoowno cadowga Somaliland ee inoo midoobay iyo Soomaalida kale ee afarta ah ee dhammaan inoo midowday inay naga soo horjeesato aynaan dowlad noqon taasoo xaasidnimo uun waxaan leeyahay waa guuleysanay in yar baana kaa dhig guushiye guntiga dhiisa isaga dhiga